goordhow oo caawa ayaa lagu soo waramayaa inuu dabqabsaday warshada biyaha sifaysa oo ku taala cirifka koonfureed ee magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaana sheegaya in dabku kusii fidayo dhismayaal ku dhow warshadaasi. waaxda dabdamiska gobolka banaadir ayaa ku howlan daminta dabkaasi walow dhismaha gubanaya uu ku yaalo meel ciriiri ah oo ku adag in gaadiidka dabdamisku uu galo. dadka dariska la ah meesha gubanaysa ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen inay ka qaxaan dabka oo laga yaabo in uu ku baaho xaafadda oo dhan, maadaama sida la sheegay ay dhacayso dabayl suuragelin karta in dabku uu aada u fakado. weli lama soo sheegin wax khasaare nafeed oo ka dhashay dabkaasi. qofkii ugu horeeyay ee qaba cudurka coronavirus ayaa waxaa laga helay qaaradda Afrika. warbixin ay wadajir u soo saareen wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu xaqiijiyay in qof ajnabi ah oo qaba cudurkaasi laga helay dalka Masar. warbixintu ma caddayn dalka uu u dhashay qofkaas, halka uu ka yimid iyo goorta uu tagay Masar, kaasoo la sheegay in lagu dabiibayo meel gaar ah oo ay ku karantiilan yihiin isaga iyo howlwadeenno caafimaad oo daweynaya. wararku waxay intaa ku darayaan in xaaladda caafimaad ee qofkaasi ay soo wanaagsananayso. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Masar ayaa sheegaya in wasaaraddu ay ku guuleysatay baaritaano ay ku ogaatay qofkii ugu horeeyay ee soo gala dalkeeda isla markaana qaba cudurka coronavirus. waaxda WHO ee Masar ayaa iyaduna sheegtay in Masar ay tahay dalkii ugu horeeyay ee heegan heer sare ah oo ku saabsan cudurkaasi gala, ayna qaaday tallaabooyin badan oo ka hortaga cudurkaasi. qofkii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ugu dhinta qaaradda Yurub ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. dalxiis u dhashay dalka Shiinaha oo 90 jir ah kana tagay gobolka Hubei ee dalka Shiinaha ayaa ugu dhintay cudurkaasi isbitaal ku yaala magaaladaasi. odayga geeriyooday ayaa tagay magaalada Paris 16kii bishii hore, waxaana 25kii bishaasi la dhigay isbitaalka uu ku geeriyooday. ilaa hadda dadka u geeriyooday cudurka ayaa markaa laga reebo gudaha dalka China waxaa hore ugu geeriyootay dalalka Hong Kong, Philippines iyo Japan 3 ruux. 1520 ruux ayaa ugu geeriyootay cudurkaasi gudaha dalka Shiinaha, iyada oo dadkaasi badankooda ay ku dhinteen gobolka Hubei. tirada dadka oo cudurkaasi soo ritay ayaa iyaduna gaaraysa 66,500 qof. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay ku baaqday in dalalka caalamka oo dhami ay u diyaar garoobaan ka hortagga cudurkaasi. dalka Mareykanka ayaa heshiis xabad joojin ah oo 1 toddobaad ah la saxiixday ururka Taliban, kaasoo wadada u xaaraya in ciidanka Mareykanku ka baxo dalka Afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyay heshiiska 7 maalmood ah oo dhigaya in kooxda Taliban ay yareysay rabshooyinkooda. sarkaalku waxa uu sheegay in heshiiska oo dhawaan dhaqan geli doono uu quseeyo guud ahaanba dalka Afghanistan. heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ay kor kala socdaan dhaqangalka heshiiska si loo hubiyo in Taliban ay jebisay heshiiska iyo in kale. haddii uu heshiiskaas 7 maalmood ay dhaqan galo, waxa ay wararku sheegayaan in Mareykanka iyo Taliban ay u gudbi doonaan waji labaad oo wada hadallada nabadda Afghanistan ah. Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga ciidan gaaraya 13,000 oo askari, waxaana heshiiskan uu imaanayaa xilli muddo kooban ay ka harsan tahay 20 guurada ka soo wareegtay markii ay ciidamada NATO ee Mareykanku hogaaminaya ku duuleen dalka Afghanistan. madaxweynaha dalka Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa ogolaaday in uu dhimo tirada dowlad goboleedyada dalkiisa, taasoo ahayd codsiga ugu weyn ee uu mucaaradku dalbanayay si loo soo afjaro dagaalada sokeeye loona dhiso dowlad loo dhan yahay. madaxweyne Salva Kiir iyo madaxii hore ee fallaagada Riek Machar ayaa la kulmaya cadaadis caalami ah oo looga doonayo in ay meel mariyaan heshiis nabadeed oo ay hore u gaareen. labada dhinac ayaa loogu baaqay in ay xaliyaan is-afgaranwaaga ka dhaxeeya inta aan la gaarin kulan ay yeelan doonaan toddobaadka soo socda. madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa tallaabadaasi waxa ku qeexay mid xanuun badan, hase yeeshee ay tahay lagama maarmaan in la yeelo haddii nabad lagu helayo. hadda waxaa la sugayaa jawaabta Riek Machar, hase yeeshee wuxuu ku adkeysanayaa dhimista tirada maamul goboleedyada oo uu uga shakisan yahay in madaxweynuhu sare u qaado awoodiisa oo jagooyin muhiim ah uu u magacaabo taageerayaashiisa. 7 maalmood oo kaliya ayaa ka harsan goorta loo qorsheeyay in la sameeyo dowlad wadaag ah oo ay yeelato Suudaanta Koonfureed, taasoo aad ugu ooman yahay shacbiga dalkaasi.
tobanaan kun oo qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna way ku barakaceen colaadda ka taagan dalkaasi oo ka dhalatay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweyne Kiir iyo Bicha, kuwaas oo horey u kala saxiixday dhowr heshiis oo aan dhaqan gelin. Salva Kiir ayaa wadanka madaxweyne ka ahaa tan iyo markii uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Suudaan sanadku markuu ahaa 2011.